madaxa xisbiga SNU walaalkeena xildhibaan Shariif Maxamed Sayidi Shariif Hamza guddigiisa fulinta ee guud ahaan xisbiga SNU dhammaan ka qaybgalayaasha munaasabadan ee kala duwan ee ka soo qaybgaleen qaybaha ururada bulshada oo idil ee ku nool gobolka Banaadir caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho ama Xamar Cadde mudanayaal anigoo salaanta islaamka idinku salaamayo idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu iyo ogolaada inaan magaciina guud ahaan iyo kayga gaarka ah baan u mahadceliyo guud ahaan ka soo qaybgalayaasha ka sokow bahda saxaafadda warbaahinta qaybaheeda kala duwan kooxda fanaaniinta Banaadiri ee aan la ilaawi karin ee udub dhaxaad u ah xafladan sida qiimaha ba'an loo soo agaasimay iyo hotelka Shamow milkiilahiisa shaqaalihiisa adeegayaashiisa ilaaliyaasha nabadda guud ahaan inta u heelan inayna deeqsiyaan maanta waxa ka soo baxaya xafladan qiimaha leh ee aan u wada idilnahay haddaan nahay bulshooyinka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan mudanayaal war la qabo xiisa male SNU ama SNU marka la soo gaabiyo waaye iyo guud ahaan dadka reer Banaadir ee xisbigani ka turjumayo Arab waxay tiraahdaa ghaniyun 'an dhikri dad la sheego waa ka dhan yihiin taariikhdooda halgankooda siyaasadeed bulshadeed mid dhaqan dhaqaale intaba waxay ku xusan yihiin diiwaanka weyn ee taariikhda haddii hagar la iska dhowrane waxay noqonayaan ummadda Soomaaliyeed dadka ilbaxnimada xadaaradda nabadda qiimaha leh dadka laga soo gaaray maantana ay mudan yihiin in lagu abaalmariyo waxa ayaga ummadda Soomaaliyeed ay ka gooyaan ama ay soo galeen ama ay soo jireen mudanayaal iyo marwooyin laba isma weydiinayso axsaabtii siyaasadeed ee gobonimo doonka ahayd ee maanta qaarkood ay nagala joogaan dad taariikhda koonfur ilaa iyo waqooyi gobolada dhexe intii soo halgantay qof uu tirin kara annaga xildhibaanada waxaa markhaati gal aanu soo qaadanaynaa odayga meesha noo fadhiyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo aabihiisa lagu dilay dagaalkii Dhagaxtuur markatani waxay astaan u tahay gudoomiye Shariif Siidi iyo xisbiga SNU iyo gobolka Banaadir haddii ayaga la halmaamo markii taariikhda la qorayo Sakharuddin la iska halmaamo xaaja dheere la iska hilmaamo khaliifuudow macallin la iska hilmaamo Cabdiqaadir Baarbe la iska halmaamo annaga iska dhaafay qof aan halmaano leegada ku jiray mudane Maxamed Cabdi Yuusuf ayaan keenay gobolada dhexe wasiga uu maanta wakiil uu ka yahay aabihiisa taariikhdiisa aan rabnay inaan meesha aan ka muujino sidaas ayaan Soomaaliya oo dhan annaga aan u jecelnahay nin kasta wax galay wax guud in meesha la keeno miiska maalinta ma kala aragay laakiin waa iska daba timid taariikhdu waa ognahay dadkii wax ku dooni jiray nabad colaad baa ka daba timid oo ninkii xoog lahow xabaqda goosna leeyahay maanta nabadii la isku abaalmarin lahaa xushmadii la isku abaalmarin lahaa halgankii la isku abaalmarin lahaa waxaa bedelay xoog iyo awood sheegasho iyadoo magacyo loola baxay dadkii halganka iyo nabadda ilbaxnimada lagu qiimayn lahaa in loola baxo magacyo aad u liita ee la yiraahdo
looma ooyayaal iyo looma aarayaal ayuu la xalaalsaday xiin walaalayaal waan ognahay maamahdii afdaboolan dahab inay ka daba timid xeelshaa maqad iyo nimaan hadlin hooyadii wax masiinayso maamahdii iimaan allah ur buuxiya inay ka daba timid ku qabso qadi maysid waa ognahay ninkii walaalow ku yiraahdo walaal roona desaan u lahayn imaan warankaada kadib warkaada ma karo inay ka daba timid laakiin maanta laga bilaabo ninkii qayli waa la qaylihaynaa ninkii inta adag waa rasbal maamaadiisa tahay annagana raasumaadkeena maamaadeena waa bedelaynaa ninkii nagu qabsado annagana waa ku qabsanay ciddii isku dayda inay qariso halganka iyo qiimaha ummadda tani ay ugu fadhido walaalayaal uma suurtoobayso maxaa yeelay bannaankay isa soo dhigeen maanta kadibna isma qarinayaan ninkii sacabka saari lahaa baa la rabaa bakoolkan soo baxay ama qoraxdan bannaanka taal 2007 ayaa Mareykanka tagay reer Banaadir oo meel iskugu tageen Minnesota ayaa lay weydiiyay iyadoo xaflad sidaa noo kale warka ma badbaadin Banaadir maxaa ka haysaa la yiri ani waxaan ku soo koobay Banaadir waa ka baxeen ragii biseelay Banaadir waa ka baxeen ragii biseelay hadda baakaati yaa mid oo baroon afuufooy walaalayaal haddii Soomaaliya nabad laga rabo Banaadir waa ka baxeen ragii biseelay yaa mid baakaati yaa yimid oo baroon afuufooy dowladnimo rabaa nabadnimo rabo dowladnimo rabaa dad wixiisi ma dhaafayo diinan sheegaha diin islaamay iska dhowrayo meel ma wada gelayso annaga waa in halganka meeshii shalay laga soo celiyaa xisbiga macaan idinka aad ku baaqdeen waxaa ku midoobaya dhammaan intii dowladnimo jecel intii nabad jecel intii islaamnimo jecel intii deris dhowrayso intii walaal dhowrayso intii xaq islaameed iska dhowrayso wala waay mahano gambala mingaro ko kalan ku bedeli gambala mingara gurteeda yaqaan gambalo mingara gurteeda yaqaan idin heer galay furudo yaani guntahay hadda wixii ka dambeeyay waa la kala baxaa inta nabadda jecel waa israaci inta islaamnimada jecel ee dhabta waa israaci inta walaaltinimada jecel waa israaci inta Soomaalinimada jecel waa israaci inta ilbaxnimada jecel waa israaci inta wada noolaanshaha jecel waa israaci inta galay furudayda ahna gaara budadeeda loogu tumaa waxay ka heshay budanayaal iyo marwooyin annaga dhihi mayno hala argoosto haddii waqtigu idin soo maro tilka alayaamu tudaawiluha laakiin waxaan leenahay خذ من زمانك ما صفى سيدك هدي إلهي كوكا طاينا كوسيا مدحوين أو قدرته شريف سيدي على أبوها يا خذ من زمانك ما صفى ومن شاعر مدحي سيفل سوسايتي كان وان وجيدا ركتر كي جامعة دا مع تسليمنا واسوق علي ماشك انتي نبض أبيها هيدو دين لقما كان المقنع مركا ولكن الشفعيدين بايمد دكتوركا يمد ولا ليال وحان أنك اسفرين حلقان كالكوكا دولة كبحيس وحواي بنادرو ساووا دنتهين انت نبض جعل inaad horqabataan marxaladan adag laga baxayo sidii Soomaaliya nabad ah looga saari lahaa xilligan kala guurka nin walba koonfurada u go'an annaga jibaalkeena mar waliba waa nabad farasho waa inaan jibaalkii nabad nooga aadna aan falanaa waa in wanaagii annaga aan horkacnaa waa inaan dadnimo nalooga dayraa oo sawir loo baahan yahay inay Soomaaliya ay ku soo hiirato marjacna ay u noqoto sidaas awadeed mar rabo marka la inaan ku dheeraado فالله حسبي إيو فالله بدوميه هذا محايلي ضمائر القلب تبدو من وجهه وير منك ضمير كيسا وجهه كيسا أيك مغنسا شريف سيدي إيو صاحب كيغا عامر شكتي أبارهان وحي أيغا أي قلاني وحي قدين سومالي واكد بكسنتهي ميل الله لميشا مسكين فديو عامر وحقيرنا يوحان لها
شريف سيد ياسين سلاسة أولد أيها وحالنا ضمائر القلب تبدو بوجهه ويخبر عنوان الكتاب بما فيه كتابنا مركز آخرنا يسد واحد ويا هيبه عنوانك أصير كو أدي آخرنا يسد كدرين ميسا مرحبا شريف سيدي وحيانا ويا هي عامر بنادر الله إذن دور نسيكين وهيشن يعني لأن عيون من القرآن أخرست هذا كي وحان أوجد بيا ولا ليال بلنتين أول بنادرو بسر لها ويا لبيجي عقلنا أديك انجرتين ما أنت وحان جعلنا هاي عقلي عدد بيناتكو أديك تاني وبالله التوفيق والسلام عليكم.